waxaa maanta degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir lagu daafuray xarunta saddexaad ee isbitaalka daawo-dhireedka iyo quraansaarka ee Diburaxma. Cabdinaafi Cabdixaliim oo ka mid ah maamulka xarunta cusub ee laga hirgeliyay degmada Dharkiinley ayaa warbaahinta ugu warbixiyay sida uu u shaqeeyo isbitaalka daawo-dhireedka ee quraansaarka ee xarunta Diburaxma. Waxa Ilaahay mahadiisa inaan ka bilownay degmada Dharkiinley annagoo u aragnay maslaxad weyn mujtamaca ballaaran ee ku nool degmada Dharkiinley doonayna in oga faa'iideyno markaskani dibbiga ah cilaajkiisa ruuxaaniga nafsaaniga lagu daweynayo kitaabka quraanka kariimka iyo sunnada nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam arrinkaas amaan ballaaran ayay noo tahay waxaana jecelnahay ummadda mujtamaca inaan oga faa'iideyno arrinkaasi iyadoo waliba aan ku martiqaadi doono insha Allah ta'ala noo imaan doono culimo waaweyn ee Ilaahay u sakhiray arrinkaasi cilaajkaasi ruuxaaniga nafsaaniga sida sheekhi weynaa Cabdilxaq iyo raggii ku xigay ma arkaysa mustawaha sare lahaa sida maxaan ku yiraahdaa Cabdiraxmaan Ceelgaabo ثالثا iyo Sheekh Maxamed Cabdullah Dinix. Isbitaalka Diburaxma ayaa la aasaasay 1 Oktoobar 2014. Isbitaalka ayaa intuu furnaay waxaa lagu dabiibay bukaano fara badan. Xogayaha guud ee isbitaalka daawo-dhireedka iyo quraansaarka ee Diburaxma Dr. Maxamed Cabdi Dinix ayaa ugu baaqay bulshada ku nool gobolka Banaadir iyo nawaaxigeeda inay ka faa'iideystaan fursadani asigoona sheegay inay dhawaan furi doonaan xarumo kale oo isbitaalka leeyahay. waxaan ka hirgelinaa magaalada Muqdisho isbitaal herbal system ku shaqeeya runtii dawada koobaad oo dadka lagu daweynayana waxaan ka dhignay kitaabka Ilaahay quraanka dawo ka sarreysa ma jirto nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man lam yashi bil qur'ani fala shifaa lah qofkan quraanka ku caafimaadin caafimaad kale ma leh waxaan dadka ku cilaajinayna waa kitaabka Ilaahay dhammaan waxaan ugu yeerinaa dadka kitaabka Ilaahay inay u soo laabtaan isku daweeyaan maxay kitaabka Ilaahay wuxuu Ilaahay u soo dejiyay in lagu hanuuno lisuna daweeyo caafimaad iyo hanuun labada wuu yahay kitaabka Ilaahay marka inay dadka u soo laabtaan dhammaan kitaabka Ilaahay dawo ka sarreysa ma jirto kitaabka Ilaahay. sidoo kale doctorka ayaa waxa uu sheegay inuu isbitaalka xiriir la leeyahay kambaniyaal ku yaala Mareykanka isla markaasina looga soo dhiibo daawooyinka qaar kambaniyadaasi. Shariif Yuusuf, Saab TV, Muqdisho.